Bismillah, alxamdulilah, wathanaa-ullah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho maalinta jacaylka adduunka. Jacaylow xaal qaado. 14 February sanad kasta waxaa loo dabaaldegaa maalintaas. Waxaa u dabaaldega dad muslimiina iyo dad aan muslimiin ahayn. Intii aan fiirfiirinayay maalintan iyo taariikhdeeda waxaan arkay waxyaabo kale oo badan oo la yaabaysid oo aan idinla wadaagi doono hadduu Ilaahay idmo. Horta bisha maalintan ee dhacdo ee loo yaqaano February oo munaasabadan la qabto, taariikhdeeda haddaan wax yar ka sheego, horta waa mid ka mid a ilaahyadii ay caabudi jireen Roomaankii hore. Dhammaan bilaha kalena waa lamid, 11 bilood oo kalena waa sidaas. February 28 maalmood waxay ku noqotay ilaahyo kala dhacay. Waxaan ka wadaa tusaale oo kale, nin Julius Caesar la yiraahda ayaa iyadoo 30 maalmood hal maalin ka qaatay. Isagana god kale uu ahaa, bishan July ninka loogu magac daray waaye. Kadibna waxaa kaloo sidoo kale iyadana maalin kasii qaatay isagana Augustus oo isna loogu magac daray bisha August oo isna 31 noqday. Julius Caesarna 31 uu noqday oo bishiisii 31 weeye. February na sidaasay 28 ku noqotay. Mararka qaar leap year-ka sanadkan loo saasay noqdaa. Maalintan sida ay ku timid iyo waxa dhici jiray, islaam iyo diimo kale oo badanba ma aqbali karaan. Xitaa bini'aadanimada caadiga ah iyo logiga caadiga ah ee ruuxda markii laga saaro ma aqbali karto. Valentine Day waxay ahayd markeedii hore asal ahaan waxaa la qaban jiray 15 February. Markii dambe waxaa loo bedelay 14 February. Sidee ku timid, sidee Valentine Day loogu bixiyay waxaas oo dhan, waxaan isku dayaa inaan sida ugu kooban uga hadlo. Wax badanaa laga qoraayay, wax badanaa laga sheegayay. Inta la sheegayo dhanna ma wada sheegi karno. Midda kale waxaa ka cudur daarana haddii aan warbixin iyo ama xog aan qaldo kale. Insha Allah waxaan la wadaagi doonaa linkiyada laga helayo mawaadiicdaas. Ugu horeyn, Valentine magacan wuxuu ka yimid kelimad Latina oo Valentinus ah. Markii la dhirin say u daba socoto waxay u tagtaa ninkii la oran jiray Nimrud, inkaar qabaha ahaa. Maxaa la yiraahdaa muslimiintaba ay garanayaan. Nimrud 4 boqor oo adduunka xukuntay, labadii gaalada ahayd mid kamid ah weeye. Marka magacan Valentine waxaa ku dhex jirta markii la fasiro weyni iyo awood iyo sareyn iyo wax lamid ah. Macnaha subxaanahu wa tacaala oo kale uu ereygaas u dhigtaa Valentine. Awoodaha ama qeexitaanka ereygan uu leeyahayna mid lamid ah waxa uu ku jira buugga Bible-ka ah Genesis 10 aayadda 8 iyo aayadda 9. Markay la isu fiiriyay tilmaamta la sheegayay iyo magacan waxaa la sheegay in Valentine uu ka yimid ninkii la oran jiray Nimrud. Maxaa dhaca marka Valentine-kan muxuu yahay intuu ka yimid? Waxaa sanad kasta 15 February la qaban jiray munaasabad ama ciid loo yaqaano Lupercalia. Lupercalia waxaa qaban jiray Roomaankii hore ee Catholic-ga ahaa. Waxayna ciidan ku sharfi jireen waxa loo yaqaano ama ilaahay u baxsadeen Lupercus oo ahaa yey ama wolf. Yeydaas waxay aaminsan yihiin ama aaminsanaayeen in laba nin oo la kala yiraahdo Romulus iyo Remus oo ay u haystaan inay yihiin nimankii Roomas abuuray oo Roma dhisay, in ay qoodisay oo nuujisay yeydaas. Labadaas kuray waxaa dhashay haweeney la oran jiray Rhea Zilpha ayaa dhashay. Rhea waxay labadan cunug oo mataanaha ahaa dhashay iyadoo la kufsaday. Sida iyadu sheegtay xabsi bay ku jirtay, dil bay ku xukunayd, uurkaasay qaaday waa dhashay. Labada cunug iyadana dilay ku xukunaayeen.
gabar shaqaale ahayd, waxaa haysteen wuxuu ahaa ilaah kale oo la yiraahdo Mars. iyadu waxay sheegtay in Mars uu kufsaday oo labadaas cunug uu aaba u yahay. calaa ayati xaal meel godaa lagu nuujiyey, waa koreen. waxay aaminsan yihiin inay Roma ay maxaa la yiraahdaa labadaas nin ay sameeyeen. marka munaasabadan waxaa lagu xusaa iyeydaas oo iyaga ilaah u ah. sawiradeeda haddaa Google ka gelisan waa heli kartaan. waxay marka aaminsan yihiin in iyeydaasi ay dadka iyo xoolaha dabjooga ah ama maxaa la yiraahdaa xayawaanka dabjooga ah ay ka celiso iyeyda kale ka celin jirtay. marka maxaa la sameeyaa 15 February? taasaa muhiima. waxaa la sameeyaa, waa la isu soo baxayaa gabdhaha kaniisadda ka shaqeeya ee wadaadada ah oo loo yaqaanay Vestal Virgins, oo iyagu ah gabdho aanan shaqo ku lahayn caruur dhalid iyo guur. nimanka iyaguna wadaadada ah ee priesteska yaa isu soo baxaya. dadkaa soo baxaya godkii ay labadaas wiil ku noolaan jireen hareerihiisaa la imanayaa. 2 orgi iyo ey waa la qalayaa. marka eygana waxaa la leeyahay waa purification oo wuxuu saafi ka dhigayaa ama nadiifinayaa leeyihiin qofka. 2 orgina waxaa loo qalayaa in maxaa la yiraahdaa caruur iyo waxaas loo dhalo. maxaa la sameynayaa marka? nimanka wadaadada ah waxay sameynayaan dhiigooda isku waxaynayaan, maxaa la yiraahdaa waa ordayaan. sheeko dheeraa ku jirta. almuhim waxay sameynayaan haweenka magaalada joogaa soo baxaya, isugu yeeraya. haweenkaasaa la garaacayaa, la karbaashayaa, iyadoo la aaminsan yahay in maxaa la yiraahdaa ay ka qaadayaan arrintaasi in ay nadiif noqdaan, ruuxdooda la nadiifiyo, dhashooda la kordhiyo, dhalmadana ay u fududaato. waayo bisha February baaba macnaheeda markii la fasiro wuxuu noqonaa purification. marka sanad kasta waxaa la qabtaa munaasabadaas. sidoo kale waxaa dhacaya markii intaas la sameeyo, gabdhaha yaryarka ah yaa loo yeerayaa. magacyadooda waxaa lagu qorayaa waraaqo yaryar, waxaa la gelinayaa sanaadiiq. wiilal yaryar baa iyana imanaya. nin walba sanduuqu gacanta gashanayaa, magacii usoo baxa oo gabar ah yuu qaadanayaa, waa la tegayaa. maxaa la yiraahdaa isagaa iskale gabadhaas inta xafladu ka dhamaanayso. waa u galmoonayaa, waa haysanayaa ilaa iyo xafladda ay ka dhamaato oo maxaa la yiraahdaa laga gaaro luberkaalyada kale. haddii gabadhaas ay cajabiso ay fiicnaatana waa iska sii haysanayaa. markaas intaas la sameeyo kadib yaa waxaa dhacday in maalintii 15aad ee Febraayo laga bedelo oo maalinta 14 loo bedelo. sidoo kale waxaa dhacday in maxaa la yiraahdaa magaca dhowr mar laga bedelay. nin Bob ahaa oo la oran jiray Glacius ayaa bedelay magaca munaasabadan oo Juno Februata la dhihi jiray. iyadana waa ilaah. wuxuu u bixiyay magac kale. gadaal haddana waa la bedelay magacii. mar waxaa laga dhigay munaasabada 2 bisha February, haddana waxaa lagu soo celiyay 14 bisha February. markaan isku soo duubo waxaa waaye, haddii sheeko badan ay jirta laakiin markaa isku soo duubo waxaa waaye maalinta aad u dabaaldegtaan waa maalintaas. maalinta xafladaha iyo aad dhigataan maalintaas weeye. waraaqahan la isu qorana waxay ka yimaadeen waraaqihii la qori jiray. gabadha magaceeda inta lagu qoro meesha la dhigi jiray oo maxaa la yiraahdaa ninku si bakhtiya nasiiba uu gabadha ugu guuleysanayay. wixii inta modification iyo isbedelo iyo ku dhaceen oo ay soo socdeen oo ay ilbaxnimadii la sheegayay wixii iyo ku hoos duugantay yaa maanta waxay noqdeen maalintaas guduudan ee quruxda badan ee ubaxyada iyo belada la isdhaafsado. maalintaas maxaa la yiraahdaa la farxo. maalintaas gabdhaha xijaaban iyo wiilal maxaa la yiraahdaa diintu ka muuqato caadiya iyagoo fahamsanayn ay la dabaaldegayaan dadkii noocaas ahaa iyagu hawshooda qabsanaya. waa saxan yihiin dadkaas oo hawshooda qabsanayeen, wixii ay aaminsanaayeen bay sameynayeen oo ah in ilaahoodii yeyda ahaa u nuujisay 2 kuray ee islaantii dhashay. yeydii u nuujisay
sida iyagu aaminsan yihiin inay weyneeyaan oo ay maalintaas u sameeyaan oo waxay jecel yihiin ay samaystaan. Maalintaasna waxaa keenaysay waxay ku aadaneyd February-na waagaas waxay ahayd maalinta u dambeysa ama aan iraahday bisha u dambeysa ee sanadka. Marka waxay iska dhaqi jireen dunuubtii iyo gafafkii ay galeen sida iyagu aaminsan yihiin. Waagii dambe laakiin February waa bedelantay oo isbedeladii dhacdhacay naftirkooda wax ka saameeyay waxay noqotay bisha 2. Marka waa taas sheekada 14 bisha February maalinta jacaylka adduunka. Marka jooji iyo ha joojin, u dabaaldeg iyo ha u dabaaldegin, adaa iskala doorashadaas. laakiin kaliya waxaa u dabaaldegi doontaa adoo og inay maalintan tahay. Waad salaamantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.